asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran janalka fifa soomaaliya kusoo dhawaada musalsalkii afarta walaal oo waqtigu ka weecday qaybtiisii 59aad sidaa ogtihiinba waatan gabadhii la dhalatay cumar iyo qadiir oo lagu magacaabay aasiya iyada iyo ebeeg lagu soo dhibaateeyey guri lagu casuumay ay u tageen shaqo balse si kale loogu arkay iyo inay yihiin gabdhaha ka ganacsada jirkooda markii ay ka soo laabteen waatan kulay kadib la isugu soo laabtay la isu weydiiyey arrintii social media oo dhigay ninkii gabdhaha shaqoolay oo tolga lagu magacaabay anug yaraa iskoolka ugu soo biray in oo wax ku dhibaateeyo kadib waatan arrinkii banaanka u soo baxay gabdhaha ay qarinayeen sida ogtihiinba waa weerar waatay qaadeen ninka lagu magacaabo qadiir iyo drog ay ku qaadeen yarkii gabdhaha loo geeyey markii yarkii ay kulmeen yarkii wuxuu u sheegay gabadhii gabdhaha u keentay magaceedii laakiin qof kale oo ku lahaa muusan sheegin balse markii ay baxeen qadiir iyo drog waxaa dabagal farsamaysan ku sameeyey tolga gabadhii saaxiibta la aheeday marka hore haddana cumarka raacday waa daawateen qaybtaas waa qaybtii 58aad waxay weydiisay in uu lug leeyahay arrinkan balse uma uusan jawaabin maxaad ka bedeli kartaa ayuu uga dhigay jawaab tan kale waxay ugu digtay gabadha la yidhaahda harika oo la taagneed xilligaas in ay ka fogaato ninkan maadaama uu yahay nin xun horteedna la yaqiinay balse iyada ayaa ka shalay doonto harika ogaa doontana tolga waxa uu yahay dibna uga hari doonta aan ka soo laabto dhacdada hore ee 58aad markii ay soo laabtaan waxay go-aan ku gaarayaan hab farsamaysan in ninkan lagu ceebeysto oo gaarsiisa in laga saaro kuleejka atamaan habka ay adeegsanayaan habeen ayay baxayaan qadiir cumar drog oo hadda kusoo biiray groupkan maadaama uu yahay aasiya xabiibkeedii oo noqday iyo olijaan oo ah adeerka qadiir oo lagu magacaabo orhaan markii ay tagaan xaafadii tolga gaarigii tolga oo banaanka yaal ayay arkayaan bannaankay u istaagayaan tolga soo baxa markii uu soo baxa waxaa leeyahay saaxiib haye noo waran habeen wanaagsan bal istaag danaankaan leenahay waa la wareysanaa wareysigii la wareystay ayaa waxaa looga dhalinaa hadallo isiga god ku riday ma oga god inuu galayo oo wuxuu hadlaa si kibir ah oo isla weyne ay ku jirto waana nin gabdha xumaan u geystay gabdhana waad ogtihiin markii xumaan loo geysto jawaabta laga bixiyo waxay noqonaysaa mid u laba jibaaranta ama u 100 jibaaranta tii gabdhaha loo geystay oo gabar la xumeeyey maaha mid sahal looga soo haro ee waa in jawaab laga bixiyo xanuun badan tii gabadha loo geystay marka la wareysto ninkan video qarsoodiya ayaa darabka duubanaa ma ogo videoga sida looga duubanayay waa laga buuxsaday videogii waa laga soo tagaayay waxaa la leeyahay saaxiib waqtiga ku wacnaado markii laga soo dhaqaajiyo drog si been ah intuu ula sheekaysto oo wuxuu ka soo qaadanaa taleefankiisii oo saaraa baabuurka gadaashiisa sheekada waxaa ku dhex jira meeshaas harika iyo wuxuu ku rakaateeyey message ay u dirtay oo ahayd cumar aniga ayaa hooyo ku diray daqarkana anaa isu geystay markii uu ku wareysanayo kuleejka u lahaa walaal run sheeg ma adiga is dhibaateeyay mise cumar ku dhibaateeyay ee tii aniga is dhibaateeyay laakiin cumar ku nabay message-kaas ayuu rabaa marka inuu ku rakaateeyo harika si uu ula baashaalo harikana markaan way isku xun yihiin isaga iyo harika way isku xun yihiin oo isagoo gaariga dalxiiska ku wado oo meesha duurka geeyay oo bistooladii baraayo xabadaha qaabka looga rido ayay mataqaanaa fahmaysaa inuu xun yahay mar oo ka taabta caloosha inkastoo ay farxad muujinayso adiga way soo dhameysanayaan howlihii duurka aadeen harika iyo tolga way soo baxayaan gaariga soo raacayaan
adi xumaan noocaas waxaa dhacday in inta gaariga ay saarnaayeen inuu gacno isku bilaabo ay diido kadib iskhilaafaan ay tiraa gaariga dhambiga dejiisa aan ku malaynaynin xuna aheeday mataqaanaa mana doonaya inaan kula sii socdo marka meeshaan dhig way ka haree adiga marka wuxuu hayaa marka teleefonkaas marka baabuurka ay raacayaan oo laga duuba videoga tolgaa ay bixi rabaan orjaan wuxuu leeyahay idhiib droog teleefonka idhiib droog teleefonka u dhiibaa orjaan fiirna waxuu arkaa message-kan oo anigaas dhibaateeyey cidna uma sheegayo oo lama wadaagayo mataqaan orjaan teleefonka jaabkisa gashanaa way baxayaan maalintii labaad iskoolka la isugu imaanaa markii iskuulka la isugu yimaado iyadoo fasalkii ardayda ay ku jiraan wuxuu u yeeraa droog wuxuu leeyahay soo baxa maanta barnaamij xiise lahaa mataqaan laga soo dinaa tvga college-ka Atumaan marka kasoo qayb gal wanaagsan way isweydiinayaan war maxaa waa barnaamijkan la sheegayo maxaa anta ninkan aad u faraxsan yahay muxuu noo hayaa aan soo aragno tolkaaga wuxuu leeyahay labadii waa soo arkaynaa harika adiga way baxayaan marka ay baxaan oo tvga la soo saaro ninkaan wejigiisa shaashada ka soo muuqanayo way naxaya marka oo naxo ardayda yaab sigaa la wada fiirinaa shalay markii social media u dhigayay sawirkii Aasiya iyo wiilkii mataqaan habeenkii loo geeyay ardayda Aasiya ay fiirinayeen sida arkayseen Aasiya qof walba oo telefoon gacanta ku hayay oo fiirinayay laakiin hadda shaashadii weyneed ee tvga ayaa waxa laga soo daayay macluumaadkii asiga ku saabsan oo khiyaanada oo qiyaamay gabdhaha iyo waxyaabihii oo la dumacsanaa inuu u geysto oo shirqoolka ahaay sigii la fiirinaa markii la fiiriyo dadka dhan ee la yaabaa ninkan hadalkiisa oo iska hadlaayo wuxuu rabo oo sheegayo gabadhu waxay leedahay noocan ma ahayd oo saaxiibta lahayd Cumar